dhegeystayaal ku soo dhawaada war degdeg ah oo hadda iga soo gaadhay degmada Xudun. Waxaa khadka si toos ah ugu jira wiil aanan magaciisa sheegayn oo reer Xudun ah. Walaal ku soo dhawow. waa maasantahay. Okay, walaal waa mahadsantahay saad ila soo xiriiday. Sababaha aad ila soo xiriiday iyo waxyaabaha jira waa noo bayaami. Si fiican horta marka hore waa ku mahad celinayaa. Marka xigta degmada Xudun baan joogaa. waxa weeye dadka adigu waxaa ka anbabaxay nin odaya iyo wiil la socday oo ninka odayga waxaa la dhahaa Axmed Mustaqal baa la dhahaa iyo wiil uu adeer u yahay oo la dhaho Saciid Geed. waxay u anbabaxeen meesha la yiraahdo Hargeysa. ninka Axmed Mustaqal isagu waa nin odaya, waa nin qurbo joog ahaa, ganacsadana weeye. halkaa adigu markuu marayay meesha la yiraahdo Caynaba kasta ka Caynaba baa labadii nin bal la soo rogo waa la xiray. ilaa hadda waxay ku jiraan jeelkii bay ku jiraan. Okay, waa mahadsantahay inaad waa mahadsantahay. Odaygu markaa wuxuu ahaa odayaasha deegaanka magaalada Xudun miya? odayaasha odaygu wuxuu oday mas'uul ah oo odayaasha kamid ah magaalada kamid ah oo waliba ganacsada oo markan uu qurbo joog ahaan jiray. markii dambana adigu Xudun soo degay baqarro waaweyn ka furtay, adigu ganacsi ka sameeyay buu ahaa. magaciisa bal mar labaad nuugu celi, codkaaga ma naga gogay, mar labaad magaca nuugu celi. waxaa la dhahaa Axmed Maxamed Saqal baa la dhahaa. marka sababaha ay loola degay baabuurka isagoo Caynaba maraya loola degay ma siyaasadu ku shuqul lahaa mise waa maxay sababta talow? adigu kallay saas sida hadda loo dhigayo isagu waxaa kuma jirin siyaasadaha iyo waxaa in iska shaqaysto iska ahaa ganacsada. hadda wuxuu u socday inuu duulo oo aado dibadda u dhoofo Hargeysa uga dhoofo. laakiin sida macnaha hadda la soo tabinayo ama la sheegayo ama la leeyahay la dambaysiinayo waxa weeye macnaha maadaama degmada Xudun xoolo laga raray oo ciidan laga raray, macnaha sida lagu soo dhigay waxa lagu leeyahay isagoo uu kamid buu habeenay laakiin isagu waxa shuqul kuma lahayn. marka waa oday deegaanka ka soo jeeda odaya. marka waxaa loo aaneynaya la leeyahay dadka deegaanka oo cudud iyo ciidan buu muujiyay maamulka Puntland baa lagu tirnaya uu leeyahay garab buu ka siinay ama uu ku shuqulaaba arrinka loo haystaa. sida loo dhigayo waa sida midda kale ma aha isaga kaliya ma aha oo kuwa ka horeeya waa lagu xirxirayay oo wada socoteen wad maqlaseen oo ka yimi Hargeysa. deetana adigu waa sida iyo macnaha caburinta lagu wado dadka gobolka soo wad ka warhaysaan, degmadana wad ka warhaysaan. dadkii kale ka imaanayay Hargeysa ku socday hakan bariga u dhashayna wad ogeedeen in lagu xirxirayay. waa sida iyo salamadan weeyo macnaha waa dadka waa saha socda weey waxaas lagu soo eeriyay. waad mahadsantahay adeer. marka xaaladda Xudun sidee hadda waa sidee looga dareemay xariga odayga madax dhaqameedka ee odaytinimada gobolka degmada ka soo jeeday ee sida xaqdarada loogu xiray Caynaba laguna eedeeyay waxaanu shuqul ku lahayn? sidee degmada looga dareemay? degmadu aad bay u kacsan tahay oo aad bay isu bedeshay. markii horeba iyadoo cabir lagu sameeyay oo mudaharaad sameeyeen lagu sameeyay jirdil maamulka Soomaaliland uu jirdil ku sameeyay. hadda raadu arintaas aad baa looga kacay oo waa laga xun yahay. isbedelka oo kii ka sii weyn baana ku dhacay. waxa weeye marka haddii aanu xiriir la yeelanay oo aanu la hadalay Caynaba iyo meesha lagu xiray aan ku niri maxaa ninkaas odayga dhaqameedka lagu xiray ama lagu haystaa. waxay noogu jawaabeen wax kale nooguma sheegin. waxay noogu jawaabeen kor baa laga soo xiray. bal kor yaa xiray? kor marka waxay uga jeedaan marka kor waxay uga jeedaan in maamulka Hargeysa ayaa amar laga soo siimay uga jeedaan. sida ay u dhigayaan waa sidaas maadaama oo qofkaas soo eeriyay waxa weeye kor baa laga soo xiray. korta waa maamulkooda un weey. adigu wax kasta cid kasta ama dabaqood hawsha macnaha warbeena ka gudbiye ama iyagu hawl gaar ah kala haadin sababtaas uu buu xiran yahay. eeduna waxa weeye uu macnaha degmada Xudun ka yimi oo laga raray xoolo iyo ciidan laga raray buu ka yimi. waa mahadsantahay walaal. guud ahaan gobolada SSC gaar ahaan reer Xudun maxaad taladood u jeedinaysaa gabagabadii barnaamijka? wallahi taladan u jeedinayo waxa weeye hadda talo waxay la tahay talo iska quruntay
waxa weeye dee halka shucuurtu marayso gobolka waad ka waraysaan shacabkiisii dhammaan inta gobolada isii oo dhan inta dee macnaha dhibaato ka taagan ama caburin lagu haya ama maamulka somaliland uu ku haya caburin waa la socotaan arxan uma galaan naf uma hayaan qofkii hadla waa xabad waxa weeye qofkii media ka hadlay ee si dhaca ka hadal fikradaada ama ka hadal rabitaankaaga waxa weeye looma ogola marka waxaan usoo jeedinayaa aan leeyahay ama si horeba loo yidhi kolley hadda intii wixii laisfar halka xaalad maraysa waa la ogyahay waxa weeye dee kolley nin duqana loo sheegi maayo nacastan waa dareemaya oon malaya waayo inaad aada iyo aad baad umahadsantay. kaasi wuxuu ahaa wiil ku nool degmada xudun oo inooga waramayay muwaadin oday kasoo jeeda deegaanka xudun oo gaari lagala degay isagoo kusii jeeda magaalada hargeysa oo caynaba hadda uu ku xidhan yahay. aada iyo aad baan kaaga mahad celinaya inaad arsaadii la soo xidhiidhay barnaamijkuna halkaasuu inagu egi. wayid maxamed diiriyo idinle nabadgeliyo.